afar shay oo ka hortaagan horumarka naftaada, ka hortaagan inaad guuleysatid, oo ka hortaagan inaad ku biirtid liiska dadka guuleystay. Qodobka koowaad dib u dhigga. Waa inaanad waxaad iminka qaban kartid aanad dib u dhigin. Dib u dhigga shay waa inaanad iminka waxaad qaban kartid aanad is oran dib u dhig, aanad is oran ma dib aad u dhigtaa ma iminka qabataa. Iminkaad waqti haystaa, waqtiga hadda aad haysatid kusoo mari maayo. Fariiqadan hadda haysatid kusoo mari maayo walaalkaa ama walaashay. Waa inaad ka faa'iidaystaa waqtigan. Waa inaad noqotaa qof sida positive-ka aan negative uga faa'iidaysan. Sida positive-ka dadka people sometimes si khaldan uga faa'iidaysan. Qaar waa inaad noqotaa dadka positive-ka uga faa'iidaysta. Waa inaad noqotaa qof Ilaahay subxaanahu wa tacaala isku xidha. Waa inaad noqotaa qof waqtigiisa maaleysta, qof waqtigiisa wax fiican ku bixiya, qof waqtigiisa dadka wax fiican u soo gudbiya. Qodobka labaad shakiga amba isku kalsooni la'aanta. Waa inaad noqon qof aan isku kalsoonayn. Waa inaad noqon qof naftiisa ku kalsoonan. waa inaanad iska shakiyin. Waa inaanad iminka dad istiraad tusaale ahaan ummadda waxaasoo soo jeedinaya sidee bay iga aaminsan ummaddu maxay igu oran hadalladii noocee bay igu oran. Waxaasoo dhan aad ku dhigtaa u dhigin. Taa ka dhigayso taana ka saar. Naftaada aamin, shakiga iska saar. waxaasi adigu sida iyaga ku aaminay marka uu dambeeyay xaqiiqda runta. iyaga ku aaminay adigu naftaada ku kalsoono please intaas oo qali aan raba. Naftaada ku kalsoono waad guuleysan kartaa. Naftaada ku kalsoono. Qodobka saddexaad eegista wixii shalay kusoo dhaafay. waa inaanad ka murugan wixii shalay kusoo dhaafay, wixii shalay kusoo maray. waa inaanad dhakhtar u ool wixii shalay kusoo maray. waa inaanad xasuusan wixii shalay kusoo maray. kaliya dhacdo kugu filan, kaliya dhacdo aad wax kala baxday, aad wax ku dhuuxday aad kaga filan. wax aad wax ka faa'iiday aad ugu filan intaas bas. hor u soco talaabadaada yani kaacay wixii shalay kusoo dhaafay. ka murugan wixii shalay kusoo dhaafay. waa wax tagay. waxaad si fiican uga faa'iidaystay meel bay ku taala adii su'aal meel bay ku taala laakiin qofka sida fiican uga faa'iidaystay meel bay ku taala. ha fiirso wixii kusoo dhaafay kusoo maray wixii laakiin fiiri waxaad iminka qabanaysid. ha fiirin waxa ka dhiman laakiin fiiri talaabada horumar u qaaday. naftaada waxaad ka aamintaa ayuun bay dadka ka aaminayaan. qodobka u dambeeya inaanad alle xiriir wanaagsan lahayn, inaanad Ilaahay subxaanahu wa tacaala xiriir fiican lahayn. adigu sawiro aduu Ilaahay subxaanahu wa tacaala xiriir fiican lahayn, aduu Ilaahay subxaanahu wa tacaala aan caabudin, aduu Ilaahay subxaanahu wa tacaala u shariik yeelaya. sideebad ku guuleysan kartaa? sideebad liiska dadka guuleystay ku raaci kartaa? sideebad u noqon kartaa qof guuleystay dunidan? sideebad hamigaaga kor ugu qaadi kartaa? sideebad riyooyinkaaga u rumayn kartaa? waa inaad noqotaa qof Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xidhan, qof Ilaahay subxaanahu wa tacaala xiriir wanaagsan la yeelo. insha Allah waad guuleysanaysaa sababtoo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa dunida maamulka. boqorka alle waa inaad isku xidhaa. haddii dunidoo dhan iska xirato hal qof aa ku banna qof Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inaad isku xidhaa. naftaada horumar insha Allah waad guuleysanaysaa khayr.